muuqaalkan waxaan idinkula wadaagayaa 3 daqiiqo ee soo socota muuqaalka Giridhi oo markii ugu horeysay soo hadlay iyo falcelinta ka dhalatay ee uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed iyo taliye shub oo noqday mid ka mid ah kuwa loogu hadalhaynta badan yahay dhowrkii maalin ee la soo dhaafay fadlan daawade muuqaalkan like saar subscribe-na saaro si aad noola jaanqaado mahadsanid dhawaan waxaa warbaahinta ku faafay magaca Giridhi kaas oo uu meel fagaare ah ka sheegay taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad oo hadda ah xildhibaan hadalkan ayuu General Mahad ka jeediyay goob fagaare ah oo uu kula hadlayay ciidan loo diyaarinayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka socda ee lagula jiro al-shabaab Giridhi hay ninkan soo Giridhi ma ya Giridhi la mugru ma xaq u bax qowma ku dhacday maxaa helay Giridhi luuqa ku kooy soo sin boorin leeynin kooy meeqa jeeran askar ku qoray sheeg hadal markii uu hadalkan ku faafay baraha bulshada waxa ay hadalhayn faro badan ka dhalatay magaca Giridhi iyo sida uu eg yahay ayadoo la arkayay dhalinyaro badan oo Giridhi isugu yeeraya intaas kadibna waxa markii ugu horeysay waraysi bixiyay Giridhi oo soo hadlay xusuusan kartaa xilliga naanesta Giridhi ee ku baxday sanadii ama xilliga ku baxday waxay ay baxday 2007 xilligaas oo la shaqeynayay General Mahad la shaqeynayay ayaa ay baxday asigaan ay bixiyay Giridhi waxa uu sheegay in magacaan uu bixiyay taliye shub oo xilligaas ahaa taliyihiisa sidoo kale waxa la weydiiyay Giridhi sababta keentay in taliye shub uu meel fagaare ah kula hadlo oo uu gees uga saaro ciidanka isagoo weydiinaya waxa ku dhacay wuxuuna ku jawaabay sidan xilli aday 8 ama la soo keen dambeysay anoo xanuunsanino aad u fiicanahay isku keen dambeysay marka aday xamar uu bedelay asiga taleeg iibka meeshan anoo fiican inta iga bedelay ka bacdi 7 sano 8 sano kala maqneen daraad feelkii guud oo salag dhaxdiisa isku aragn anoo ilgo'no rafaasan marka ninka muxuu saa u noqday way sheekada meesha ka baxday generaalka wax badan aad soo marin dawladnimada ka horaaba macnaheedu soo jabhadeen waan dhibi jiray waxna waa ka dardar jiray waan yaraa adii wax meel dhigto waa ka hada jiray macnaheedu marka jabhadnimadii waaya tan booliisnimada gooni waay marka taariikhda horta meesha iga soo raacday Giridhi meesha iga baxday intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan kooban kulanti dambe oo xiiso leh saaxiibayaal